بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرسكي سقالات waxaynu soo helnay dawaaqiiddii daaquudka shanaad ee la yidhi ka fogaada waxa weeyaan mid kasta oo yidhaahda inta allah ka sugaysa ilaah baan hay ma ilaah baan la mid ahay wuxuu qabanaya iyadha waxa weeyaan ama nebi ahaado ama malag ha ahaado ama weli ahaado أي واحد كستان وحو دليل قوله تعالى ومن يقول منهم إني إله فذلك من دونه فذلك نسي جهنم كذلك نسي الظالمين وسورة الأنبياء سقاليو أدم قال لي لباتن أي متكستو كوا كمدة يرهل أنت على قصة كيسة إله بان هاي waxaanu ugu abaalgudnaa ninka jahannamo isagoo daalimiintoo dhan marka shirki wax dulmi ka weyni ma jiro ka ilaah iska rabdhigay ninkaa nin ka daalimsani oo ka gardarro badani ma jiro marka waxaad ogaataa dawaaqidda nina inaanu muumin noqonaynin ilaa uu ka fogaado oo ka tago ka kufriyo dawaaqiddaasoo dhan بوين صوشك نورين وحي لمده قال تعالى وحوري فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم وهو سورة البقرة هذا يمكن لي لحيكم لما بقول لحية كنت نيكا كفر يا طاغوت إيه لك اليوم لك قرى انتاجن لا إله إلا الله فقد استمسك نكاسو وقف صدي حريقان قوينين عن القول لا إله إلا الله إلا لغو فسري والله سميع عليم إلا بانا وحول من رقليه وحول من أركيه وحبك قرصونين أدبا سفها غو كفرية داغوتكو وحويان إنه اعتقاده إنه باطل تهي إله غير كي لعابده واتكتقيسو dad ka adimkale ku jira waxaa ilaa qeyrkii adimkale caabudayo ku qalqalayana adimkale aad u cadhooto oo aad la colowdo ood nacdo an tumina billahi inaad ilaahay rumayso waxa weeyaan sidaad u rumaynaysaa waxa weeyaan u aaminaysaa inaad ictiqaaddo ilaahay keligii inuu macbuudka xaqa yahay rabbiga la caabudayo xaqe inuu keligii yahay oo cid kaleo cibaadada lihi aan jirin dadka ahlu tawxiidka ee halkaa ku dhaqmayana waa inaad jeclaato oo aad raacdo oo aad kale aad la mac noqoto taas oo aad kale yahay waa tii nebi ibraahim ku dhaqnay beeyo weeyaan waatana ilaahayna yidhi ku dayda ilaahay nagu aad kale yahay dhiirinayo liqawlihi tacaala wuxuu yidhi qad kaanat lakum uswatun xasanatun fii ibraahiima والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده وسورة الممتحنة هذا أفراد يا حقيقة وحيد قصدا كنت يشون أكسن نبي إبراهيم يكوي لسعودي قوم كيسي إذ قالوا مركوي هذين قوم كودي إن بريبا ندخلنا ضد يهو يذكر يوحى عبد سردن كفرنا بكم وانو ذكرتني ويديدني وحنا نحن نكبر لابنتي عداود يو عرو aan weligeed joogsanaynin ilaa ka baxdaan oo ka tagtaan shirkiga ka timaadaan oo ilaahay keliya aad rumaysaan caabudisaan qaala tacaala inaad kale wuxuu yidhi waid qaala ibraahimu liabiihi wa qowmihi إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين جعل كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون هذا سوى سورة الزخرف أدمك لي آيات أدمك لي حيو لباتين لا استدي لباتين حسن محمد مركي نبي إبراهيم أبيه يقوم كيسكو يلي بريبان كاهي وعابد سردن الله يا بوري موياني أساقاني هنونين دونا وحانو كدي كلمة باقية إلى قيامها دم كلي هاي لكن نحن دونه
wixii ilaahay adduunka ku hanuuniyo waa kelimad laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah iyo waxa koobsatay waa kelimadda ay ku taagan tahay samooyinka iyo dhulka oo dhan waa kelimadda dadka oo dhan khalqiga oo dhan ilaahay ku daabacay laftooda waa kelimadda adduunka leeyahay dagaalka gaali islaam adduunka leeyahay uu ka dhacay seefta adduunka leeyahay ku kacday waa kelimadda adduunka leeyahay dadku loogu qaybsamay shiq iyo siciid ahlunaar iyo ahlujanna waa kelimadda laa ilaaha illa allah waa taxambaarsan diimaha oo dhan faral iyo sunnaba waa kelimat alislaam waliimaan islaamka iyo iimaanka oo ku xidhan waa kelimadda miftaaxa jannada oo haysto oo bitaaqadda nin haysta milkaanu jannada gelaynin laa ilaha illa nin sita mooyaane waa kelimadda nina aanu adduunka leeyahay ilaahay gaadhaynin asagoo kelimadda adeebta cuskada mooyaane waa kelimadda nabigu yidhi laqinuu mawtaakum mawtideen u laqima markay sii dhimanayaan kelimata laa ilaaha illa allah waa kelimadda nabigu yidhi mana kaana aakhiru kalaamuhu laa ilaha illa allah dakhala aljanna kaadii may hadalkiisa ugu dambeeyo oo dunyada kaga baxaa laa ilaaha yidhaaho jannadu galaa waa kelimaddu uu ku adduunka leeyahay kula talinayey nebi maxamed adeerkii dadka u jeclaa markuu dhimanayey uu ku yidhi adeer qul laa ilaaha illa allah aan adduunka le ilaahay kooga shafeece ee uu odhan waayo uu diiday ee dabeedna cadaab ku teg cadaab galay waa kelimadda dabeedna kelimaddaasu waa kelimadda ay uu yidhi nabiga ninka la yimaada aakhiro waanu shafaacaya ascada annaasi bishafaacati maqaal laa ilaha illa allah khaalisan min qalbihi ninka khaalis isagoo adduunka leeyahay u dhaqmay la yimaada aakhiro ee wax shirkii la iman waa kelimadda adduunka leeyahay aan ku shafaacayo weeyaan waa kelimadda uu ku yidhi muuse uu yidhi ilaahayow waxaan adduunka leeyahay kugu adduunka leeyahay baryo kugu caabudo ii sheeg ee ku yidhi waxaad tidhahdaa laa ilaaha illa allah uu yidhi ilaahayow dadkao dhan baa laa ilaha illa leh uu yidhi nebi muusew haddii samooyinka waxa ku jira oo dhan aan aniga ahayn iyo dhulka waxa jooga oo dhan hadday adduunka kafad la saaro laa ilaha illana kafad la saaro way la ciiri lahaydoo kelimaddaasaa ka culus laa ilaha baa ka culus haddaba kelimadda sirta ku jirta waa maxay waxa weeyaan kelimaddu waxa weeyaan inaa adduunka leeyahay aad ilaahay cibaadada ay khaalis u tahay cibaadada oo dhan ay khaalis u tahay maxabada adduunka tacdiimta adduunka leeyahay jamiica adduunka cibaadooyinka oo dhami waa kelimada adduunka leeyahay ay ku xidhan tahay waa kelimadda adduunka leeyahay islaamka iyo iimaanka iyo ixsaanka sida waa kelimada ducada iyo cabsida iyo rajada iyo tawakulka iyo isticaanada iyo istiqaasada isticaanada kul waxaasoo dhan dabagalgalka baryada waxqalista nidarka wax alaale wuxuu ilaahay jecel oo dhan adduunka leeyahay kelimad xamarsan weeye waxa weeyaan waa inaad ilaahay mooye cid kale waynad jeclayn wixii aad kala jeceshayba waa inad daba socdaan waxay daba socdaan oo markaa maxamadaas ma sii kordhinayaano wuxuu ilaahay jecel mana jeclaato maxamadii ma sii kordhisa oo tabac ba u yihiin waa inaad ilaahay mooye cid kale aan waxu ka rajaynaynin waa dadka ilahay ku tawakilayso waa inaad adduunka leeyahay ilaahay keliya haddee wax ka rajaynayso waa isaga istiqaada weydiisanayso isticaanada wax walba waa inaad ilaahay dartii adduunka u shaqaynayso waa inaad ilahay ka raalli gelinayso wax kastaba haddaad wax weydiinayso cid su-aalinayso ilahay su-aalo idaa stacanta fastacin billah waidaa sa'alta fas'al illah waa camalka samaynayso ilahay dartii u samaynayso cidna way jeedin fahuwa lilahi inaad jirtay wabilahi ilahay wamacallahi inaad macallahi tahay goor walba jamci daalika kullahu waxaasoo dhan waxaa adduunka leeyahay xambaarsan laa ilaaha ila allah maxameda rasuulullah sidaa darteed ninka kelimaddaa xaqiijiya laa ilaha illa allah maxamed rasul xajiya adduunka leeyahay ninkaasi ayaa naartu ay xaaraan ka tahay oon adduunka leeyahay halkaa aan helaynin laakiin ninka adduunka leeyahay waxa weeyaan wuxuu nabigu yiri adduunka leeyahay qul laa ilaha illa wastaqim laa ilaha illa dabeer intaad tidhaahdo istaqim ku taagnow halkaa qaala tacaala wuxuu yidhi waladiina kuwa adduunka leeyahay waladiina bishahaadatim qaa'imuun kuwa shahaadadooda ku qumay ee sidaa ku taagan qaala tacaala
waxna ku korin waxna adimka leeyahay aan ka naaqsin waxna aan qarinin daahir iyo baatin kuwaasi weyn kuwa adimka leeyahay ay anfacayso laa ilaaha illa allah kama qaal xiyalaad kale wuxuu ku yidhi ina aladiina qaaluu rabbuna allah tuma istaqaamuu tatanazal calayhim almalaa'ikatu alaa takhaafu walaa taxzanuu waabshiruu biljannati allatii kuntum tuucaduun suuratu fasirat aayadda adimka leeyahay soddonaad weeye kuwa yidhi rabbigayo wa allah halkaa istaagay ku engegsaday ilaa ay rabbigood la kulmayeen qiyaamaha dhankaa iyo dhankaa midna aan uga dhaqaaqin walaa weli ha barin ilaahiyo nabiga aan odhan ilaahiyo sheekh hebel aan odhan ilaahay oo keliya oon baryayey ilaa ay dhimanayeen cid kale aan adduunka ku dhawaaqayn ictiqaadsanaa markay dhimanayeen baa malaa'ig kusoo degtaayo way bushaareen waxay ku dhahan allaa takhaafo ka cabsanina aakhiro waxaa idinka horreeya janna idinku horreysa walaa taxsanuu kana murugoonina waxaa adduunyada kaga tagteen wa abshiruu wax ku bushaaraystaan jannadii ilahay idinku ballan qaaday ahla laa ilaaha illa allah taa ku bushaaraysa taa marka kelmaddaasi ayaa adimka leeyahay laa ilaha illa macnaheedu waa taasi wuxuu yidhi xadiis qiyaamaha adimka le waxaa yimaada baa layidhi nin adimka leeyahay 9 sijil oo dembiya oo ilkaragtay sijil iba ilkaragti hayay matalan adimka leeyahay waa kitaab marka la kala bixiyo ilkaragtay gaadhiyo oo dembiya 9 baa lasoo saara markaasaa maxaad ma diidaysa wax kanoo ma waxaad leedahay adimka leeyahay malaagtii waxay ka qoreen adimka leeyahay khalad maya buu dhaha wuxuu dhaha waa run bay waxaasoo waa dhawan qaba wax kaloo sheeganaysa ma jiro maya buu yidhi waxaad nagu leedaho kalimaa dooni jeerjeerta maya baa yidhaha ilahi wuxuu dhaha waxbaad nagu leedahayoo wuxuu soo saaray bitaaqad warqad yar way ku qoran tahay laa ilaaha illallah maxamed rasuulullah ashhadu an laa ilaha illa ashhadu anna maxamedan cabduhu wa rasuuluh markaasuu rabbiga maxay ka tiri kartaa bitaaqadan yari 9 adimka leeyahay sijile adimka leeyahay ilkaragte dembiga ku yaarjeen ilaahay dabeedna bitaaqadii laa ilaha ku qoreedna wuxuu saaraa adimka leeyahay gees buu saaraa bitaaqadii 9 sijina meel baa la saaraa bitaaqadii laa ilaha baa la dhacda saasuu adimka jannada ku tagaa haddaba laa ilaaha illa allah ninka afka kale waa in waxaasoo dhan aqoonsan yahay oo waa adimka leeyahay wax kale oo dhan waa inuu qalbigiisa ka saara say ka anfacaysaa waa caynkaa laakiin laa ilaaha illa allah haddana waxa la wuxuu doono samaynaya yaa oonu garanaynin waxay adimka leeyahay u diidaysa iyo waxay adimka leeyahay u doonaysa toona ma anfacayso markaa ha la barto waa adimka leeyahay in badanna marka adimka leeyahay dhintaan waa halka adimka leeyahay ay ku marka la yidhaha malku soo saare la yidhaha man rabbuka waa ku aanbagabgaleeye dabeedna adimka la isugu dhufto adimka qabriga labadiisa geesto la isugu dhufto walciyaadu billah halkaa inoo joogo wabillahi towfiiq